wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa xustay maalinta koortaga askareynta caruurta ah oo loo asteeyay 12 Abriil. Wariyahana Cabdishakuur Shaasha ayaa warkan inoo faahfaahinaya. waxaa ubad loo korshaa in badan loogu daalayaa astaamaha qaranka iyo af iyo dhaqan loo baraa inay anfacaan dalko abaalkii loo galayna dib ay ka oofiyaan. waa qayb ka mid ah erayada hees looga hadlayay habraaca abaabinta caruurta iyo ka ilaalinta askaraynta. maantana waa 12 February waana maalin weynaha caalamiga ah ee ka hortagga askaraynta caruurta. howlkanina waa kii wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu ka dhacayo xuska maalintan iyada ah. martida munaasabadan agaasinkeeda ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, taliyaha ciidamada xoogga dalka, taliyaha ciidamada dhulka, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga, ururada bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin matalayay hay'adaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya. waxaan ballanqaad ah wasaaradda gaashaandhigga ahaan iyo taliskeenaba in aan agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Marwajahan Cabdullaahi Xasan ayaa ballan qaaday in wasaaradda gaashaandhigga ay dib ugu soo celin doonto waalidiinta Soomaaliyeed caruur la sheegay inay askareeyeen shabaab iyo Daacish. waxaan ballanqaad ah wasaaradda gaashaandhigga ahaan iyo taliskeenaba in aan dabagalno caruurta Soomaaliyeed oo ay isticmaalaan cadowga sida hadda sidii ku cadeyd ciidanka ay soo badbaadiyeen askar waalidiintooda laga qaatay gobolka Boqol oo ciidanka xoogga soo qabteen ay ku wareejiyeen hay'adaha amniga. waxaa ka go'an taliskeena iyo wasaaradaba inay ka shaqeeyaan in caruurta waalidiintooda laga qaatay in dib loogu soo celiyo hooygooda iyo meesha ay mudan tahay ay tahay in iskuulada ku laabtaan. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Oduwaa Yuusuf Raage ayaa munaasabada ka yiri marxaladda maanta dalkeenu ku jiro iyo caruurta la gelinayo dagaalka la gelinayo waxaan dareemi karnaa nimankan burcadiimeedka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diiday harsashadii iyo hargalkii intaba u diiday. nimanka ayaan isleeyahay waxay mudan yihiin runtii in laga qabto caruurta Soomaaliyeed. waxay ii sheegay baabi'iyeen mustaqbalkoodii, waxay baabi'iyeen waxbarashadoodii iyo ii sheegay badqabkoodii, waxay baabi'iyeen caafimaadkoodii. marka kuwaas ayaa u baahan runtii in dabcan ayagu in laga wacyigeliyo ma mudna in laga qabtay mudan yihiin sidii looga qaban lahaa in laga fikiro kuwaasaa mudan. marka ciidanka Ilaahay ayagana ii sheegay caruurta Soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku hayaan oo ay ii sheegay afduubka u heestaan oo waalidiintii dhashay iyo ii sheegay qoysaskoodii ay afduubka uga heestaan. kuwa badanna hore waa looga badbaadiyay, kuwa kalena waxaan isleeyahay waqtigoodu waa soo dhamaaday mana u suurtageli doonto insha Allah taala inay sii heestaan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ka sheekeeyay mowqifka dawladda ee ku aadan in aan la askarayn caruurta. xaqiiqdii dawladda ee Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxay ka go'an ama ay committed ku tahay sidii loo ilaalin lahaa caruurta. caruurta waxay ka mid yihiin mustaqbalka ee dalka, waxay ka mid yihiin aayaha dalka. runtii dal wuxuu ku xisaabtamayaa jiilka soo koray, waa madaxda mustaqbalka. marka waxaa ka go'an dawladda sidii loo ilaalin lahaa looguna dadaali lahaa sidii ay waxbarashadoodii iyo aqoontooda lagu kordhin lahaa. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aad la socotaan wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u kala duwan, laakiin maanta wuxuu soo gaaray marxalad aad iyo aad u qiimo badan kadib markii runtii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed dhammaantoodaba ay systemka la geliyay, taasoo macnaheeda ay tahay inaysan jirin
wax caruur ay da'dooda ka yartay 18 jir aanu aaminsannahay waqtigan cidda isticmaasha caruurta ama dhibaato ku gaarsiisa ummadan Soomaaliyeed waa ururka xag jirka ee al-shabaab iyo daacish oo dhammaantooda u adeegsada caruurtaas oo maskaxdooda aan soo korin si ay u isticmaalaan inay ku baabiyaan ummadda barnaamijyada oo waxba galabsan runtii insha allahu tacaala kuwaasna sida hadda taliyayga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka dhawaajiyey in badanna lagala dagaalamay inta kale oo xabtayn insha allahu tacaala aan ku guuleysan doono waqti dhowna ummadda Soomaaliyeed ay gaari doonto meel runtii aad iyo aad ay ugu faraxdo. fariinta wasaaradda gaashaandhigga ee 12 February maalinta ka hortagga askaraynta caruurta ayaa qayb ka ah heestan ay ku luuqeynayaan kooxda horseed ee ciidanka. عبد الشكور شاشة SBS مقدشو.